Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waxaana wanaagsan asxaabay meel kastoo aad dunida ka joogtaanba. Kusoo dhawaada warbixinteena maanta. Waxaynu kusoo qaadan doonaa Casemiro oo ka jawaabay hadalkii Maxamed Salah, supercomputer oo saadaal cusub ka sameeyay Premier League kooxda ku guuleysanaysa ee kaalmaha afarta sare iyo weliba saddexda heerka labaad u laabanaya. Lionel Messi oo uga sii diray PSG iyo khasaaraha lacageed ee sanadkan oo kaliya soo gaadhay oo ay shaacisay suuqa kala iibsiga iyo warar kale oo xiiso badan. intayna bilaabin fadlan subscribe noo saar siina share gareysa asxaab badan u gaadho mar labaad kusoo dhawaada saxaabay barnaamijkeena maanta. Horyaalka Premier League ayaa u muuqda mid la isku dhaganaan doono ilaa maalinta ugu dambeysa maadaama ay si adag u halgamayaan Man City iyo Liverpool oo hal dhibic oo kaliya u dhaxayso. Pep Guardiola afarta ciyaareed ee u harsan ayaa ka fudud kuwa Liverpool marka isbarbardhig lagu sameeyo. City ayaa wajihi doonta Newcastle United oo ugu imanaysa Etihad Stadium. Wolves oo ay u tagi doonaan isbuuca xiga. West Ham oo iyaguna ay ku booqan doonaan London Stadium. iyo maalinta ugu dambeysa oo ay martigelin doonaan kooxda tababare Steven Gerrard ee Aston Villa. Liverpool ayaa iyaguna waxay qaabili doonaan Tottenham oo ugu imanaysa Anfield ka hor inta aanay isku diyaarin kulanka Aston Villa ee dhamaadka isbuuca soo socda oo ay u tagi doonaan. Waxa kale oo ay marti u noqon doontaa Southampton halka ciyaarta ugu dambeysa ay Wolves kusoo dhaweyn doonta Anfield. Supercomputer ayaa sawir ka bixiyay sida uu noqon doono miiska kala sarreynta Premier League marka la ciyaaro kulamada ugu dambeeya ee May 22-keeda. waxaana uu kaalinta koowaad siiyay Manchester City oo horyaalka u qoondeeyay halka Liverpool ay labaad calafsan doonto. waxaa kaalinta saddexaad fadhiisanaysa Chelsea. kaalinta afraad oo sida oo kale uu ka taagan yahay dagaal ba'an oo u dhexeeya Arsenal iyo Tottenham ayaa uu supercomputer ka sii farxiyay tababare Mikel Arteta. waxa kale oo uu supercomputer kala saaray kooxaha heerka labaad u laabanaya oo mar horeba la xaqiijiyay Norwich City ay dhaadhacday. waxaana uu raaciyay heerka labaad uu supercomputer u diray Burnley iyo Leeds United. Casemiro ayaa u jawaabay Maxamed Salah oo maalmihii ugu dambeeyay u muuqday mid si kari lah inuu mar kale finalka Champions League kaga hortago kooxda reer Spain. Maxamed Salah ayaa ka hor intii aanay Real kasoo gudbin Manchester City sii sheegay inuu doonayo inuu ka hortago kooxdaasi halka markii ay soo baxeen uu baraha bulshada kaga dhawaaqay inay tahay waqtiga argoosiga. Casemiro oo kadib ciyaartii habeen hore ee City hadalka Salah wax laga weydiiyay ayaa sheegay in qof kasta uu dooran karo waxa uu doonayo balse uu finalkan yahay mid ka duwan oo ayna waxba iskaga xidhnayn midkii hore. qof kasta waxa uu dooran karaa waxa uu doonayo malaa waxa uu doortay sababtoo ah dhaawiciisii hore ayuu ugu horreynba yidhi burburyahan reer Brazil. PSG ayaa soo bandhigtay kharashaadka ay sanadkan isticmaaleen waxaana ka dhex muuqda in kharashka ay bixiyeen iyo lacagta soo gashay ay kala badan yihiin isla markaana lacagta ay mushaharka iyo kharashaadka kale ku bixiyeen ayaa ah 192.4 milyan oo gini oo dhiganta 224.3 milyan oo euro. arrinta la yaab kale ayaa ah in mushaharka ciyaartoydu uu kordhay 21% oo uu gaadhay 431 milyan oo gini. marka la isku daro lacagta ay PSG kharash gareysay xilli ciyaareedkan waxaa isleekaaday lacagta ay isticmaaleen 14 ka mid ah kooxaha horyaalka Faransiiska. sababta mushaharkoodu uu sare ugu kacay ayaa waxay tahay xidigaha waaweyn ee yimid ee kabtanka Real Madrid iyo Barcelona ee Sergio Ramos iyo Lionel Messi halka goolhaye Donnarumma uu tagay PSG maalmo kadib markii loo caleemo saaray xidiga Yurub uu isaguna dalbaday lacag badan. waxa kale oo mushaharkooda cirka ku sii shareeray Wijnaldum oo isaguna si bilaash ah kaga soo biray Liverpool iyo Achraf Hakimi oo ay ka soo iibsadeen Inter Milan. Manchester City ayaa ka fiirsanaysa inay si xor ah kula soo wareegtay xidiga Manchester United ee Paul Pogba. tababare Pep Guardiola ayaa lagu warramay inuu qorsheynayo inuu Pogba ku soo wareejiyo Manchester City iyadoo saxiixan uu noqon doono mid carab badan dhalinaya. Pogba ayaana u sareeyay liiska ciyaartoyda oo sharaxay inay bedelaan waayo aragga reer Brazil ee Fernandinho waxayna durba la tartamayaan kooxo kale oo waaweyn oo ka dhisan meelo ka baxsan Ingiriiska kuwaasoo dalabyo soo bandhigay Pogba tan iyo bishii Janaayo. kooxdiisii hore ee Juventus ayaa jeclaan lahayd inay kubad sameeyaan ku soo celiso Talyaaniga. dhanka kale PSG ayaa rajaynaysa xidigan ku qolqaadisay inuu ka ciyaaro dalkiisa Faransiiska taasoo soo jiidan karta Pogba.
wararkeena ciyaaro waa naga intaas asxaabay intaynu kulmi doono wararkeena kale. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.